salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xiran Ayuush bintu Rashiid waxaan idin leeyahay mar kale iyo mar kaleba soo dhawaada waa anigoo ah Ayuush bintu Rashiid janaalka aad naga daawanaysaan waa isla Ayuush bintu Rashiid fadlan haddii aad ku cusubtahay subscribe saar oo gambaleelka furo kuna soo biir asxaabteena haddii aad hore noola joogtana like iyo share comment insha Allah saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso jacayl sida aan hore idinkugu sheegay maalin walba oo khamiis ah waxaad iga sugi doontaan qiso maanta waxa inoo soo qaatay qiso ay inoo soo dirtay gabar walaasheen ah saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa sida hore idinkugu ballan qaaday maalin kasta oo khamiis ah inaan idin soo gudbiyo qiso maanta waxa inoo wadaa qiso ay inoo soo dirtay gabar walaasheen ah waxa ayna ku bilaabanaysaa sida tan magacaygu waa Leyla Cabdulaahi waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab run ahaantii aniga waxa igu dhacday qiso xanuun badan dadnimadeedana bedeshay haddii aan dhaho qisadan waan ka wada sheekeynaa ma ka wada sheekeyn karo aad ayay u dheer tahay balse waxaan ka soo qaadanaynaa muhiimadda guud subax khamiis ah jawiguna aad u qurux badnaa ahaana jawi roobaad ayaa waxaa dhacday in aan dukaan ka soo adeegayay aan ku iloobay dukaankaas oo aan ka dheereen agagaarka xaafadeena kadib waan soo baxay oo waxaan soo doontay alaabtii aan iska soo iloobay markii aan socday qadar 5 daqiiqo ah ayaa waxa igu dhacay dhagax markii aan fiiriyay meeshu waxaa joogo ciyaal aad u fara badan oo dhalinyaro ah waliba ciyaal banooni ah markii aan weydiiyo qofka dhagaxa igu dhuftay way isfiiriyeen kadibna way igu qosleen mar labaad ayaan soo baxay sidii ayaa la igu dhuftay haddana waan weydiiyay haddana way isfiiriyeen way qosleen shib ayaan ka dhahay ilaa ay dukaanka ka galay sidii ay ii foodeynayeen waxay rabaan ay igula hadlayeen anigana shib ayaan iska dhahay dukaankayga ayaan galay waxayga ayaan soo qaatay waan iska soo baxay kadibna maxaa dhacay markii aan soo baxay ayay haddana waxay bilaabeen in ay isku dayaan in ay aniga gacan ii qaadaan ee waliba dhaxda intay gashteen in ay isku kay turturaan aniga oo yaaban talo meel aan ka bilaabo aqoonin ayaa mar qura indhahayga waxa ka soo daadatay ilintaas oo ah ilin aan aad iyo aad uga ciishooday sababtoo ah aniga wiilal ilama dhalanin gurigeygana hal hooyo ayaa joogtay caruurteenana waxay ahaayeen kuwa iga yaryar uma baqan nafsadeeda balse niyadda ayaa waxay iga gashay xilligan wiil walaalka oo ka weyn haduu joogi lahay saan maanta ma kugu dhici lahayn wiil ka mid ahaa dhalinyarada banooniga ka imaatay ayaa iscelin waayay marka uu arkay aniga oo ilmada iga daadanayso waa uu soo istaagay waxa uu isku dayay in uu la hadlo oo iga celiyo balse aad ayay isku walwaaleen oo waxay dhaheen adiga miyaa rabtid qofta ma ku haysataa iyo hadallo uu ka xanaaqo kadib ayaga dhexdooda ayaa isdagaaleen anigana waxa isoo waday wiilkii markuu isoo waday ilaa iyo alaabta ayuu ila soo qaaday ilaa iyo gurigeena ayuu isoo dhaweeyay cabaar wiilkii markuu isoo raacay wuxuu isku dayay in uu ila sheekaysto ama su'aalo i weydiiyo kadib aniga waan u jawaabi waayay oo jawaabteeda waxa ay ku ekeed ilmo oo kaliya ma aan hadli karin dhuunta ayaa i kala xirneed anigoo shibka ah ayaa guriga soo galay alaabtii ayuu albaabka ii dhigay anigoo faraxsan ayaa hooyaday ka tagay si kastay wax ii weydiiso waan u jawaabi waayay wixii aan waday barandada ayaan iska dhigay anigana si haleeli ayaan iskugu tuuray sariirteeda waliba anigoo barkinteeda ku dul ilmeynaya hooyaday oo la yaabtay markaan baxay sida isku soo bedelay ayaa qolka iga soo daba gashay iyadoo i weydiinaysa su'aalo kala duwan anigana barkinta ayaan wajiga saartay anigoo ilmeynaya ayaan shib ka dhahay waxay isku dayday in ay i weydiiso su'aalo aad iyo aad u fara badan balse anigu ma ahay qofkii jawaabi lahay hal mar ayaan hadlay waxaana dhahay hooyo aniga xal ayaan dhafray waxba iguma dhicin hurdo la'aan oo ayaa i heeso haddana waxaan dareemayaa madax xanuun waxaana doonayaa inaan jiifto in cabaar ah kadib hooyo way baxday oo way iga tagtay
haddana bil kadib ayaa waxaa dhacday in ay noo dhalatay bishii barakeysneed ee Ramadaanul Kariim. Ramadaanka ayuu Ilaahay si nabad ah noogu soo dhameeyay. Maalin maalmaha ka mid ah oo ay ciidana noogu dhiman tahay 2 maalmood ayaan waxaan dhar ciid u doonay carruurtii la dhalatay, waxaana aaday bakaaro. Sidaan iskaga daba wareegayay meesha ayuu gabalkii iigu dhacay, waana soo daalay. Xilli dambe ayaan soo baxay anigoo keligay wadada marayo, weliba lugeynayo haddana cabsanayo. Anigoo yaaban ayuu waxaa iga hor imaaday isla wiilkii. Markaan arkay run ahaantii aad ayaan ugu farxay. Kadibna waan salaamay, waana isku sheegay, waana u mahadceliyay. Waxaan dhahay maalintaas maskaxdeyda ma fadhin, aad iyo aad ayaan hadda kaaga mahadcelinayaa. Welina aniga kuma iloobin, abaalkaagana waan kuu ogahay walaal. Aad ayaad u mahadsan tahay. Dhib male abaayo, waan isku leenahay ayuu i dhahay. Alaabtii aan waday ayuu ila soo qaaday. Isxog wareysi ka bacdi waan isdabeecad fahnay, lambaradii ayaan kala qoranay, sidii ayaa haddana ku kala tagnay. Anigana waxaan iska soo galay gurigeyga, isagana cabaar ayuu ila joogay, kadibna waa uu iska baxay. Kadib aniga iyo isaga waxaan noqonay walaalo dadka kale iskaga dhow amaba saaxiibo. Xiriir ayaan yeelanay, xiriirkaasoo ahaa xiriir walaaltinimo. Muddo markaan wada soconay oo ii noqday isagana walaalkay oo kale, maadaama aan u sheegay in aniga wax wiil ah ila dhalanin, isagana booska walaalkay ayuu ii taagnaa in badan. Xiriirkeeni markuu socday muddo 6 bilood ah ayuu haddana wuxuu ii soo bandhigtay xiriir jacayl. Aniga qudheydaba jacaylka waan qaaday, balse isma aanan ogeyn. Markuu ii soo bandhigtana waxaan ku dhahay waan ka soo fikiraa walaal. Amuur alle, aniga markii aan asaga waayo waxaan dareemi jiray cidlo. Daqiiqad ma moogaan karin, mana ogi waxa ay haayo. Anigana waan isfahmi waaye, isagina waan rabaa. Mana dayri karo, mana diidi karo. Amooday inuu igu soo maqayo, waxaan mitidaba noqotay nafteed. Amooday inuu igu soo maqayo, waxaan mitidaba noqotay nafteed. Marmaan kala gacayl mayra cayba, imaagu igu murxsadayo. Marmaan kala gacayl mayra cayba, oo haddaan dhaho xiriir jacayl ma kula sameynayay, waxaan ka cabsanayay in uu iga fogaado, sababtoo ah wuxuu noqday qofka kaliya aan dabeecad fahmay dadka banaanka joogo. La'aantiisana wallaahi nolosha cariiri aan ku dareemi jiray. Heer waxaan gaaray dadka dhan aan ka soomo, isaga mooyee indho kale aana yeelan, balse waqti xaadirkaas ma ogi waxaan isaga u qabo. Ugu dambeyntii waan aqbalay, waxaana u sheegay in aan diyaar u ahay. Waxaan haddana ballanay in aan kulanno 2 habeen kadib. 2 habeen kadib waana kulannay. Waqti ayaan wada qaadanay, weliba waqti aad iyo aad u qurux badan. Waxaana ku wada sheekaysanay dalcad gurigeena agtiisa ku taalo. Run ahaantii aniga xasuus gaar ah hadda ii leh. Cabaar waxaan wada sheekaysanaba, waqti ayaan wada qaadanay, si fiican ayaan u wada sheekaysanay. Habeenkaasi waxaan qalinka u duugnay in xiriirkeenu uu noqdo xiriir wanaagsan, ku dayasho mudan, in uu qofna qofka kala qiyaamin, in xaalad walba oo jirta marxalad kasta iskugu dul qaadano, in qiyaamo iyo dhibaato iyo mar dambana aysan dhexdeena ka dhicin, horeyna aysan ugu dhicin, maadaama uu yahay xiriirkii jacayl ee iigu horeeyay in uu asaga yahay. Anigana siduu ii sheegay in aan aniga ugu horeeyay oona xaqiiq ahayd. Maadaama aan aniga ugu horeeyo qof uu isaga jeclaado, anigana iigu horeeyo qof aan jeclaado, labadeenaba midna horey xiriir jacayl uma uusan soo sameynin. Wuxuu xiriirkeena sii jiitamaba oo muddo 3 sano aan wada soconay. Xiriirkeenina qarsoodi ahaa ayuu wuxuu iga codsaday in aan waalidkay u bandhigo. Kadib hooyo ayaa u bandhigay, hooyana way ku faraxday, wayna aad ayayna u jecleed. Kabacdi waa isdabeecad fahnay. Wiilka aad ayuu noogu imaan jiray. Wiilka guriga wuxuu ka ahaa guri wiil ka dhashay oo kale.
aad waxaan iskugu faraxsanaanaba. habeenkuy maleegay moogayne habeenkuy maleegay moogayne waxay murugada jacayl ma hadho wankayga ku yeeshay meel halise waxay murugada jacayl ma hadhe wankayga ku yeeshay meel haliso midhaabada waan la meeraystee macaanow haygumadiyey midhaabada waan la meeraystee macaanow haygumadiyey midhaabada waan la kadib waxaa nagu soo biiray awoowaheen oo reerka guud mas'uul ka ahaa. hooyo ayuuna ku wargeliyay in uu rabo in uu aniga igu daro wiil walaalkay ah oo adeerkay dhalay oo laga celi waayay naag cadaan ah oo ajnabi ah. isagana waxa uu joogo wiilka Mareykanka. isla markii hooyo ayaa ii imaaday, arrintii ayayna ila wadaagtay. anigana waxaa igu dhacay sas iyo foos wareer. waxaan dhahay hooyo, adigoo og in aniga iyo Maxamed 4 sano aan xiriir leenahay, sidee maanta ku keentay in aad awoow warkaas ka yeesho? maxaa ugu sheegi weysay? iyo calaacal iyo cataaw ayaan galay. hooyo waxay igu tiri, awoowaha waa taqaanaa, ma jecla in hadal lagu soo celiyo. adiga ayuu awoow ku yahay, waan u sheegi kartaa wax walba. anigana waxaan dhahay hooyo, dhibkayga adiga ayaa fahmi karo, waa ku baryaa i caawi hooyo, awoow iga la hadal. hooyo, aniga ma aqbali karo. Maxamed iyo aniga 4 sano ayaan isu sugayna hooyo, wax ii cunto maayana ma ahan inaan maanta ka tago. hooyo, aniga Maxamed axdi ayaa wada galnay. hooyo, maxaa kugu dhacay? wax kasta oo aan sameeyo. hooyo waxay i tiri, u tag awoowaha, anigana waan ku caawin doonaa, waa hadduu war naga yeelo. kadib waxaan bilaabay in aan awoowe cabaar iska daba qorqoro, weysada u qaado. kadibna markuu hadalka igu soo qaaday, waxaan ku dhahay awoow, wiil ayaan wada soconaa 4 sano, mana doonayo inaa aniga qof i rabin igu dartid. wiilkan isagana wuu i jecel yahay, anigana waan jecelahay. wuxuu iigu jawaabay, awoowe, aniga ma raba in aan kugu daro nin kale, waayo aniga waxaan rabaa in aad aniga la ibadisiin. familkiina ma raba inuu midna shisheeye iga aado. waxaan rabaa inaad isweeshatiin oo idinkana aad isbadisiin. anigana waan diiday, waan calaacalay, wax kasta waa aan sameeyay. awoowe wuxuu i dhahay, aniga gabar yahay, war badan ma rabo, warkayguna waa cad yahay. far duco iyo far habaar, waa in aad labadaas mid qabsataa. anigana aad ayaan u qeyliyay, guriga dhan ayaan ka tagay. awoow, aniga waxaan dhahay, ixtiraamka aan kuu qabo fadlan awoow naceeb ha u bedelin. aniga waalidkay ayaa tahay, balse ma rabo nin aad naag ka reebaysa. nin i jecel ayaa haystaa oo muddo axdi aan wada qaadnay. intii aan Maxamed ka tagi lahaa, waxaa la ii qaatay adigoo i habaarta awoowe. awoowe shib ayuu iga dhahay. hooyo ayaa igu qeylisay markaa sidaa dhahay. awoowe ayay ayadana la soo safatay, ayadoo ila naceysay erey, balse aniga markaas xiqdi ayaan u qaatay oo waan fahmi waayey, waayo waxaan ahaa qof wax jecel. habeen iyo maalin Maxamed maahay, qof kale iima muuqanin noloshayda. waxaan aaminsanaa Maxamed intuu iga tagi lahaa in aan geeriyoodo, waayo xiriirkeena wuxuu ahaa mid 4 sano socday. waxaan sameeyo ayaan garan waayay. intana awoowe ayaa iga haysto, intana jecel ayaa iga haayo. allahayow, naf wax jecel maxay naxuus tahay. anigana isla markii waxaan wacay Maxamed, waxaana u sheegay dhibaatadani haysato. Maxamed markii aan u sheegay, aad ayuu u murugooday. wax uu sameeyay ayuu garan waayay. wax kasta waa uu sameeyay, waa uu dadaalay. nag qof wax ka aqbalaysa ma jirin. kabacdi waa fikirnay, go'aan ayaan qaadanay. waxaan dhahay awoow, ninkaad rabtid igu dar, balse Maxamed uma aana sheegin qorshaha aan wato. waxaan dhahay awoow, wiilkan waan iska fasaxayaa, ee wiilka aad jeceshahay igu dar. Maxamedna sidii ayaan ku fasaxay. Maxamed mar walba wuxuu ii soo diri jiray dhambaalka uu ka murugo badan yahay iyo qiiro.
Mar walba Maxamed wuxuu ii haystay qof nacab ah, wuu ila yaabi jiray, waxa uuna dhihi jiray nafsi waa maguure. Balse aniga waxaan ku jiray sida aan aniga iyo Maxamed isku heli lahayn, oo qorshe kale ayaa damacsanaa. Allahayow, laba kala barida kala warla. wareer weeye dunidu waydu wanaagi adigana wiiqe nafsi waa madhaafa wuu hawla badan yahay nafsi waa madhaafa wuu hawla badan yahay waanu hawlgalayaa bartu wadar ku yeeshee halku wadar ku yeeshee. Kabacdi wiilkii ayaa waxaa la soo siiyay ciwaankeyga, aniga iyo wiilkii ayaa wada xiriirnay, waxaana u sheegay in aan anigu wiil jecelahay oon aanu guurkiisa diyaar u ahayn, balse asagana jecel ayuu lahaa, wuxuuna ahaa qof waxgarad ah. Waxa uu igu dhahay haye waayahay, haye awoowa dhaheynaa, waana cagajiideynaa, waqtigana cagajiid ayaan ku dhameeheynaa ilaa qof walba oo tiisa ka gaaro. Sidii ayaan ku wadnay intaasna Maxamed waxa uu iga aaminsanaa qof xun. Muddo markaa Maxamed ka qariyay ayaan u sheegay, waxaan dhahay Maxamed wiilku waa uu iga ogolaaday, xitaa aniga asaga ma xiriireyno, aniga adigana xiriirkeena wuu inoo soconayaa ilaa uu awoowo ka daalaa, ileen waayeel tag lama dhehe, wuxuu ka taga ayaa la tusaa. Sidii ayuu aniga iyo Maxamed xiriirkeena u socday. Waxaan muddo wada soconaba waxaa dhacday in Cabdirasaaq uu ka imaaday Mareykanka, misna hadal waalid uu isagoo raali ka ah aniga igula imaaday, ballantiina iiga baxay. Aniga oon filanaynin, maalin maalmaha ka mid ah jikada iskaga jiro ayaa hooyo ii wacday, waxa ayna igu tiri soo labiso isna diyaari, marti ayaa soo socoto. Haye ayaan dhahay, waa soo labistay, dhar qurux badan ayay ii soo xirtay, dharkii ayaan soo xirtay, ileen waaba dad qorshe kala wata. Allahayow, nimaa wax ogeyn ha cadaabin. Wax yar kadib waxaa imaaday Cabdirasaaq oo anigana sawir bis aan ka hayay. Waan yaabay, fajac iyo amakaag ayay igu noqotay, iyo odayaal fara badan oo isla socdaan, dhammaantood dhaxda ayay i gashteen. Aabana waxa uu igu codsaday in aan odayaashaas ku ceebeenin. Waxa uu i leeyahay, aabba, anigoo aabbaha miyaa sharafteeda dhulka la gelaysaa, wiil aad shalay baratay miyaad maanta iga doorsanaysaa. Wallaahi wax aan sameeyo ayaan garan waaye. Maxamed aad ayaan u jeclahay, waayo Maxamed intuu ii soo qabtay kuwa adeeradee dhalay iima aysan soo qaban, iyo kuwa ila dhashaba. Aabbahay i dhalana waan awoodi waayey siduu igula hadlay in aan asaga waalidiintiis iyo walaalihiis ku ceebeenin. Maxamedna waan awoodi la'ahay inaan ka tago. Wallaahi waxaa noqday dhari labada dhinac ka gubtay. Cabdirasaaqna waxa uu i leeyahay, waxaan ku siiyay 3 bilood oo jaanis ah, haddii aad wax ku qabsan karto ku qabso, haddii aadan wax ku qabsan karinna aniga waalidkay ha igu dirin, mana aqaano talo meel aan ka bilaabo. Aad iyo aad ayaan u fooswareersanahay. Maxamed haddaan hal mar heli lahaa, wallaahi kama fogaa lahayn inta nolosheedu ka dhiman. Talow xageen ka helaa? عاشق بان وبيسكنيو أنا كوهبتو كهرواي عاشق بان وبيسكنيو أنا كوهبتو كهرواي هالكين كهلا هالكين كهلا هالكين كهلا 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 هالكين كهلا balse qof aniga 3 bilood iga yeeshay ma jirin. Isla fadhigii ayaa la igu meheriyay, anigoo la igu hanjabayo haddii aan ka soo horjeestay inaan aabbahay dib dambe iskugu arki doonin. Wax aan sameeyo ayaan garan waayay, anigoo sideedu u ilmeynaya ayuuna meherkii igu dhacay. Aniga isla markii waxaan wacay Maxamed, waxaana u sheegay in uu meherkii igu dhacay. Wallaahi Maxamed aad ayuu u ciishooday, waxa uuna igu dhahay, abaayo
aniga ragnimo ma weynin ee danta ayaa ii run sheegtay ifka hibo ku joog aakhirana halkiiroon haddaan calaf isku leenahay mar walba rajadeedu way nooshahay anigoo aad u ilmeynaya xakameyn waayay nafteyda ayaa waxaan ku qoomameeyay wax walba dhammaadkooda haddii aan ogaa lahaa wax walba bilaawgooda ayaan iska ilaalin lahaa cabdirasaaq iyo maxamedna waxa ay isdhaafsadeen erayadan adduunyadan rag iyo dumar badan ayaa ku wada nool kulligoodna waxay jecel yihiin calafkoodana ay ka dhistaan laakiin go'aankaas markay gaareen waxay moogyihiin annagu dadaalka un baan leenahay mooye awooddu way naga sarraysaa calafkeennan annaga ma xukunno kulli haddii sida la wada aamin lahaane wajixumana ma dhex martaan dhibaatana isuma geysanin waan wada sabarno cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine calafka sidaa